jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Switzerland ayaa xaflad soo dhaweyn ah waxa ay magaalada Geneva ee dalkan Switzerland ugu qabteen danjiraha dowladda Soomaaliyeed ee Switzerland Abyan Maxamed Saalax. munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee Switzerland ku nool ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa danjire Abyan Maxamed Saalax Macalin Abuubakar oo ah xogayaha labaad ee safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Switzerland iyo Xuseen Cabdi Mayow oo ah la taliyaha koowaad ee safaaradda. xubna ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Switzerland oo madasha ka hadlay ayaa danjiraha iyo diblomaasiyiinta kale ee ka howlgala safaaradda u ballan qaaday inay la shaqeyn doonaan isla markaana ay isgarab istaagi doonaan. waxaanu idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan, farxad iyo rajo weyn aanu qabno in danta Soomaaliya ay ka leedahay wadankan iyo wadanka Austria iyo hay-adaha qaramada midoobay inaad si buuxa uga shaqeynaysiin, kalsooni buuxana waanu idinku qabnaa. waanuna aragnay intii yarayda aad joogteen kartidiina iyo aqoontiina soo dhaweyno si sharaf iyo macnaha kalgacal iyo walaaltinimo ay ku jirto inaan halkan caaw ku soo dhaweyno safiiradeena loo soo magacaabay dalkan Switzerland iyo Austria isla markaana u fadhida qaramada midoobay Marwo Abyan Maxamed Saalax. waxaan leeyahay safiirad soo dhawow, waxaad u timid dalkaagii macnaha ii sheeg labaad oo maxaa yeelay safaaradda annaga waxay noo matalaysaa dawladdeena Soomaaliya. waxaan ballan qaadaynaa inaan garab idina danta oo adinka aan naga leedihiin waxaa ka weyn midaan annagu idinka leenahay oo bulshadan aan ka leenahay. marka marka koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waan leenahay soo dhawow. waxaan si sharaf leh aan ugu soo dhaweynayaa caawa halkan safiiradeena Abyan Maxamed Saalax iyo tiimkeeda ku soo dhawaada Switzerland. anigoo magacayga ah Yaxya Daalib Axmed sidoo walaalkay hore u sheegay ahna aasaasaha hay'adda Help Somali ee ka furan gobolka Bern. marka ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu arrimaha dhan u fududeeyo. inaad ku ducaysan baan jecelahay mar koowaad mar labaad mar saddexaad. barashaduna inta ma aan barashortu waa ducada iyo qowluuta iyo ka timaada wax kastaba. waxaa inoo sharaf caawa inaan si niyad samiye ee qalbi samiye aan ku soo dhaweyno walaasheen safiiradeena qaaliga ah Marwo Abyan Maxamed Saalax. dhammaantood waxay diyaar u yihiin in ay kugu soo dhaweeyaan magaalada Geneva. sacaadatu safiir Abyan iyo staafka la shaqeeyo waxaan idin leenahay ku soo dhawaada dalka Swiiska. dhankeedana danjiraha dowladda Soomaaliyeed ee dalalka Switzerland, Austria iyo xarunta labaad ee qaramada midoobay ee magaalada Geneva Abyan Maxamed Saalax ayaa ugu mahadcelisay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Switzerland sida wacan ay u soo dhaweeyeen. danjiraha ayaa ballan qaaday inay dardar gelin doonto howlaha safaaradda isla markaana dhowaan ay bilaabi doonaan bixinta baasaboorada Soomaaliya. waxaan marka hore u mahadcelinayaa dhammaan reer Switzerland sida xurmada leh iyo qadarinta leh ay igu soo dhaweeyeen Geneva isla markaana aad qaarkiin igu timaadeen xafiiska igu soo salaanteen idinkoo gobolka ka yimid. waxaan kaloo mahad weyn u celinayaa mas'uuliyiinta reer Geneva ee iska xil saaray inay soo abaabulaan xafladda tan quruxda badan oo ah isbarasho iyo soo dhaweyn intaba oo aan loo kala harinin rag iyo dumar, dhalinyaro, odayaal, hooyooyin, culumo iyo bahda saxaafadda. sidoo kale intii soo ajiibtay meelo fogfog nooga yimid iyagana mahad gaar ah ayaanu celinayaa. inaanu si hufan ugu adeegno oo hagar la'aan ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan labada wadan ee Switzerland iyo Austria. waxaan idila socodsiinayaa in dhawaan la keenayo baasaboorradii. waxaa naloo soo bedelay Cabdiqaadir Barkhadle oo noqon doona oo ah First Secretary. waxaa laga soo bedelay Turkiga isagaana mas'uuliyadaasi aanu u xil saari doonaa haddii alle idmo. marka baasaboorradii waa la keenayaa safaaradda la yimaado. xafladan ayaa waxa ay ku soo dhamaatay jawi aad u wanaagsan. Cabdiqani Cali Dalmar, warbaahinta qaranka SNTV, Geneva, Switzerland.